cuntooyinka caawiya hagaajinta unugyada dhiigga cas. Runtii dhammaan asxaabta halkan ku sugan maanta waxaan ka hadli doonaa cuntooyinka kaa caawin kara hagaajinta unugyada dhiigga cas. Sidaad ogtihiin, unugyada dhiigga cas waxay door weyn ka ciyaaraan qaadista oksijiinta jirka oo dhan. Marka haddii aad rabto inaad dhiiggaaga ka dhigto mid caafimaad qaba, waa muhiim inaad cunto cuntooyinka ku habboon ee bogsiya unugyada dhiigga cas. Haddaan si dhow u eegno cuntooyinka kaa caawin kara dhiiggaaga inuu noqdo mid caafimaad qaba. 1. Hilibka iyo cuntooyinka badda. Hilibka lo'da, digaaga iyo kalluunka sida kalluunka loo yaqaan tuna waa cuntooyinka aadka muhiimka ugu ah hagaajinta dhiigga cas, waxayna hodan ku yihiin saddexdooduba. Waa hilibka, digaaga iyo kalluunka nooca tuna loo yaqaan waxay hodan ku yihiin iron iyo vitamin B12. Labadooduba waxay gacan ka geysanayaan soo saarista unugyada dhiigga cas ee caafimaad qaba. Qodobka 2. Maadada laga helo folate. Qudaarta sida gaarka looga helo folate sida spinachka, koostada, qudaarta aan u naqaano, iyo broccoli-ga waa il wanaagsan oo laga helo folic acid, iron iyo vitamin C. Meelahan waxaan hore usoo sheegnay in iron iyo B12 laga helo lo'da, sidoo kale hilibka lo'da, sidoo kale digaaga iyo kalluunka. Hadda waa iron iyo folic acid iyo vitamin C. Ayaguna waxaa laga helaa broccoli-ga iyo koostada. Nafaqooyinkani waxay si weyn uga caawiyaan jirkaaga inuu soo saaro unugyo dhiig cas oo cusub. Haddii marka aad rabto unugyo dhiig cas oo cusub, waa inaad isticmaasho broccoli iyo spinach ama waxaa loo yaqaan koostada. Sidoo kale vitamin C-ga wuxuu jirka ka caawiyaa inuu si fudud u nuugo ironta. Qaybta 3. Sisinta iyo digirta. Labaduba waxay hodan ku yihiin iron iyo folic acid, waxayna labadooduba muhiim u yihiin ka hortagga dhiig yarida. Haddii dhiig la'aan ay ku hayso, haddii HB-gaagu uusan dhaafin 7, 8, 9, gaar ahaan dumarka, inta badan waxaa muhiim ah inaad isticmaasho digir ama sisin. Marka aad isticmaasho digir ama sisin, waxaa jirkaaga siinaysaa awood uu dib ugu soo kabto unugyada dhiigga cas. Qaybta 4. Beetroot iyo ukunta. Beetroot inta badan waxaa loo yaqaanaa bayturaafka iyo ukunta waxay dhiirigeliyaan soo saarista hemoglobin. Haddii marka in la soo saaro aad jeceshahay, beetroot iyo ukunta waa inaad isticmaasho, sababtoo ah hemoglobinta ama HB-ga waxaa loo yaqaano hemoglobin waxay soo qaadaa oksijiinta unugyada dhiigga. Sidoo kale ukunta waxaa ku jirta maadada vitamin B12 iyo vitamin D, labadooduna waxay kor u qaadaan caafimaadka dhiigga. Hagaajinta unugyada dhiigga cas waa muhiim jirkoo dhan ayayna muhiim u tahay. Cunista hilibka, gaar ahaan kuwa aan hore usoo sheegnay, sisinta, ukunta, digaaga, waxyaabahan spinachka, koostada, broccoli-ga, waxaasoo dhan bayturaafka, dhammaantood waxay kaa caawinayaan jirkaaga inuu helo nafaqooyinka laga maarmaanka u ah in jirkaagu helo dhiig caafimaad qaba. Ku dadaal inaad cunto cuntooyin dheellitiran si nolol caafimaad qaba aad ugu noolaato. Mahadsanid daawashadaada. Haddii aad jeclaatay muuqaalkan, fadlan like saar, sidoo kalena ha iloobin inaad subscribe saarto si aad u hesho muuqaalo badan oo caafimaadkaaga muhiim u ah.